intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobadii warka ugu doorka roona markana warkii oo fidsan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee maanta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ee lagu magacaabo Xasan Shaati Guduud waxaana halkaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin fara badan gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ayaa loo galbiyay goobtii ay ka degi lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa kamid ahaa xubno sare oo ka tirsan baarlamaanka gudiyadiisa kala duwan iyadoo badankood ay ahaayeen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaasi gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe iyo xubno kale ayaa iyagu ka soo hormaray wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka iyagoo halkaa ku tagay maanta laba diyaaradood oo uu wafdigu watay kulamada ayaa la filayaa inay bilowdaan caawa ilaa berito iyadoo si weyn looga wada hadli doono arrimo ku saabsan dowrka deegaanadaasi dadka ka soo jeeda ay ku yeelanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay aanu wanaagsanayn xiriirka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka soconaya kulan looga wada arinsanayo sidii loo dhisi lahaa maamul 6 gobol ka kooban Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo la filayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisu inay kulamo la qaataan guddidan qabanqaabinaysa kulankaasi iyo odayaasha dhaqanka iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo isku dayay inuu tago magaalada Baydhabo loo diiday inay halka galaan kadib markii odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ay ku dhawaaqeen in aanay wax wada shaqeyn la yeelanaynin dowladda Soomaaliya iyagoo sheegay inay ka xumaadeen heshiiskii dhawaan dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Axmed Madoobe oo hogaamiyo Jubba ee ka taliya gobolada koonfurta deegaana ka tirsan gaar ahaan Jubbooyinka waxaana lagu soo waramayaa in magaalada Baydhabo xiisad aad u kacsan ay ka jirtay maalintii shalay kadib markii halka uu ka dhacay mudaharaad weyn oo dadka deegaanku ay uga soo horjeedeen qaabka loo casuumay ka qaybgalka shirka Brussels qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo sheegay in bulshada ka soo jeeda deegaanadaasi aanin badan oo kamid ah ama wixii ay xaq u lahaayeen ka qaybgalka shirka aan la siinin guddidan uu hogaaminayo imika gudoomiyaha baarlamaanka ayaa la filayaa inay ku qanciyaan dadweynaha deegaankaasi iyo odayaasha dhaqanka sidii markaa loo sii xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo gobolada deegaanadaasi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo aanu la xiriirnay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in mar kale dowladda Soomaaliya ay markaasi isku daydo inay maamulka kala shaqeyso sidii loo hirgelin lahaa maamul goboleed markaasi laga hirgelinayo gobolada koonfurta Soomaaliya